sheekadani waxay gaar u tahay raadiyo Wilson. kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jecel waana qaybtii 26aad ee sheekadani waxaa qalin ku qaatay Alabwaan Isma Sitowsi dhegeysi haboon. طبعا qaybtan 26aad ee sheekada waxay nooga bilaaban doontaa falkii cartan iyo foodadii ka dhalatay. war maxaa ka jira meesha? maxaa dhacay dadow? cartan oo tooreydiisii dhiig ka da'aysa misna haddana doonaya inuu nin kale oo dagaalka dhexdhexaadiye ka ahaa ku dhifto ayuu indhaha ku dhiftay walaalkii baari ahaa. markaasuu ku dhawaaqay, waar nin yahow maanta raggan meel aan saarnay toorey haddaad wadato la soo bax ama taydan kuu dhiibayaayay ku dhifo. ninkii dhexdhexaadiyaha ahaa ayaa markuu arkay in ninkan dambiilaha isgaranayaan ninkuu la hadlayo ayuu ku soo rooray dhankii baari oo uu yidhi, waar nin yahow ninkan ma istaqaanaan? haa ayuu si lama filaan ah u yidhi wiilkii baari ahaa asagoo ka walwalsan falkuu sameeyey walaalkii. ninkii dhexdhexaadiyaha ahaa ayaa u xaqiijiyey in ninkan ay isgaranayaan uu yahay dambiile misna uu doonayo inuu asagana toorey ku dhifto. intuu hadalka sii waday dhexdhexaadiyaha ayaa ku dul yimi ninkii cartan ahaa oo kaga taagi raba. markaasuu baariyar gacantii midida ku watay dhabka siiyey asagoo leh, nin yahow adigu dabaal maa tahay? maxay tahay dembi haddaadba ku jirtaaye midda kale maad nagu gali rabtaa? baari iyo cartan meeshii waxaa ku dhex maray dood. ugu dambayntiina baari wuxuu walaalkii cartan u soo kaxeeyey dhankii iyo gurigoodii. hayeeshee hoyga waxaa ku sugnayd hadaf baarto oo la dhakafaarsan halkuu wiilkeedii baari ahaa qabtay. ayadoo isla sii hadlaysa ayaa albaabkii lasoo gargaraacay. markii ay iridka ka ballaqday ayay aragtay baari oo neeftuur xooggan ka dhacaya iyo cartan oo asna u muuqdo nin dembi soo galay. isla durba hadaf baarto oo amakaagsan ayay weydiisay waxa maanta dhacay. baari ayaa hadalku u bilaabay oo yidhi, hooyo, ninkan cartan ah maanta qof buu midi geliyey. hadaf baarta aad bay u naxday ayadoo leh, alla kani maxaa magaalo nagu keenay? waa tuu dad nagu dilaye dee maxaan sameeyaa? cartan ayaa asna ka daba yiri, hooyo, reer magaalku waa dad dulmi badan balse dagaalkii layla galay anaa kaga guulaystay. baarina wuxuu u kicitimay dhankii iyo iskuulkiisii barayfatka ahaa markuu keenay wiilka cartana. dhegeystayaal waxaa halkaa nooga dhan qaybta 26aad ee sheekadii laab mid ah iyo lur jecel. dabcan sheekadana waa sheeko taxan ah, noqon qof ka sheekeeya balse ha noqon qof looga sheekeeyo. waxaan idinkaga teginaa sidaa iyo nabadgelyo. waana halku dhigii iyo hal abuurkii Alabwaan Isma Sitowsi. waxay iga qaatay ilada wahabkeeda wareerta iskayga intaan way halaabay
walalubi waxaan ku ilaaway araga wajigaaga intaan wehanaabay dartaa walalubi waxaan ku ilaaway araga wajigaaga